guurka iyo dhaqanka Soomaalida xoolaha la siiyo reerka gabadha la guursanayo waxa la yiraahdaa yarad naagta la guursaday xoolaha ay soo raaciyaan reerkooda waxa la yiraahdaa dibaad naagta la furay xoolaha la siiyo waxa la yiraahdaa meher naagaha inta ay koox isku raacaan u guur doonta deegaan kale waxa la yiraahdaa heerin gabadha nin la siiyay ee u doonan waxa la yiraahdaa alkun gabadha guurka ka daahday waxa la yiraahdaa gumeys wiilka aan wili guursan waxa la yiraahdaa doob ninka naagaha badan waxa la yiraahdaa gododle gabadha aad u taqaan dhaqanka wanaagsan waxa la yiraahdaa gaari gabadha qaangaarka ah aan wili la guursan waxa la yiraahdaa gashaanti naagtu hadii ay ilmo mid ah dhasho waxa la yiraahdaa dilan hadii ay hal mar laba madax canug ay dhashana waxa la yiraahdaa mataano gabadha reerkooda lagala baxsado waxa la yiraahdaa masaafo ama dhabar garaac ninka iyo naagta is guursanayo habeenka ugu horeeya ee la aqal galayo waxa la yiraahdaa galbis ninka iyo naagta is guursanaya maalinta arooska naagta iyo ninka ay soo wataan waxa la yiraahdaa malxiis iyo malxiisad astaanta lagu garto in meeshu aroos ka jiro waxa la yiraahdaa mashxarad ama alalaas naagtu ilmaha ay dhasho iyadoo aan wili shinkeedii gaarin waxa la yiraahdaa dhicis markuu shinkooda buuxsamana waxa la yiraahdaa dhameys ama shindhalad ninka naagaha dila ee u daran waxa la yiraahdaa xilo bilaal ama xilo gube naagta ninkeeda u baariga ah waxa la yiraahdaa raaliyo naagta mar la guursado ee la soo furo waxa la yiraahdaa garoob hadii ay ninkeedu dhintana waxa la yiraahdaa carmal ilmaha ugu horeeya ee hooyadu dhasho waxa la yiraahdaa curad kan ugu dambeeyna waxa la yiraahdaa gura dambeys ninka naago shukaansiga iyo naago shirinta badan waxa la yiraahdaa shabeel naagood ninka haweenka si hoose u faragashta arrimaha guriga sida kushiinka waxa la yiraahdaa qorqode naagta nadaafada liidata ee korkeeda caruurteeda iyo aqalkeeda aan nadiifin waxa la yiraahdaa areebo ama basari naagta ninkeedu dhinto ee uu guursado ninkii dhintay walaalkiis waxa la yiraahdaa dumaal sidoo kale ninka ay naagtiisu dhimato ee la siiyo gabadha la dhalatay xaaskiisii dhimatay waxa la yiraahdaa xigsiisan naagta la qabo ee ninkeeda aan la dhaqmin waxa la yiraahdaa gees xir